qodob hadalkayga inaan badiyo ma rabeen mid waxaan kula hadlayaa dadka isbedel doonka midna waxaan kula hadlayaa maamulka midna waxaan kula hadlayaa ugaaska iyo beeshiisa iyo dadka ka maqan waxa aan ka aaminsanahay isbedel doonka waxaan kula hadlayaa dadka isbedel doonka oo ilaahay baa idin abuuray nin noolaanayana ma jiro nin aabihii nool yahay ma jiro nin hooyadii nooshahay ma jiro adiguna geeri baad ku xukuman tahay dadkan intay idiin humbaaleeyaan oo cagaha dhulka idinku dhuftaan aad ka cabsanaysaan ilaahay baad addoommo u tihiin ilaahay caabudo oo dadkaad ka cabsanaysaan iska daayo maseerkiina caddaysta maamulkana hal baan leeyahay horay baan oola hadalay markii koowaad markii labaad markii saddexaad markii boqolaad markii kumaad baan maraynaa waxaana leeyahay dhig buuxiyaan dhawaa uma maqlaan aanin yar ku darsada halkaa nin baa dhurwaa la coloobay intuu halka dilay marka wuxuu yidhi ilaa waxaad iga ogaataa dhurwaa meeshaan kugu arkay inaan kugu dilaa maalinta dambe uu dhurwaa hal intuu ka dhargay garab fadhiyo u imaaday oo aayar hilibkiisu u cunayay seexday markaasuu intuu waran la gaaday buu ku qadbay dhurwaagii baa intuu kor u firiyo oo yidhi oo wuu calacalay wuxuu waran ku dhacdo wuu calacali wuu ku dhaato wuxuu yidhi dhurwaayo adaa dilay hasha ibaha toosnayd ama waa itaalfoolxuma weyna adeerka ama aabbaha baa dhalo odaad wadaagtaan arxanimo sideed iga sii waad uur garan bu anu ka gaban maayo nimanka maamulka ee Axmed Madoobe u weyn yahay waan isuur garanaynaa waxaynu u sameeyeen way ogyihiin way hadda wadaana way ogyihiin kana qaadan mayno annaga muxuu ahaa kursi xaaraan lagu qaatay intuu naga gadmo in lagu maamulo qaadan mayno horeyna waan u diidnaa haddana waan cadaynaynaa maamulkana intaasaan leeyahay dadka kale Soomaaliyeed ee meesha fadhiya raala iga ahaadaan cawliyahanna hal baan leeyahay cawliyahana waxa idinka maqan niman wasiir inoo ahaa oo inaga aan wasiir ka dhiganay oo moodayay inaan wasiiradii haddii ay Axmed waayaan ay waayahayaan qabiil bay wasiirada ku heleen qabiilkoodii bay u joogeen qabiilkoodii wasiirada ka dhaxelayaan ku soo noqdaan ama nimanka dhaqanka lagu sheegay anagu dhaqan nagama maqno cawliyahan waa la isaqaanaa bah iyo boqor buu leeyahay dadka lama muruqtuujiyo inuu Axmed Madoobe ina Cali Sokor u xareeyay Maxamed Suweer annagana shal sultaan noo xareeyo inaan dhimanaa nooga fiican annaga sultaanka anaga waa la yaqaanaa webiga markii la soo gooyay hal sultaan baan leenahay inta kaleeto waa anigoo kale kii nabadoon boocbooca iyo kii nabadoon la doortay anigoo kale weyn shanta nin ee suldaamadeena loo xareeyay wiilal cawliyahana weeye inta cawliyahanimada waan u ogolahay laakiin suldaannimo naguma mateli karaan ugaasnimo naguma mateli karaan nabadoonnimo naguma mateli karaan mid ayeydii mid ay noqotay xataa kuma jiro iska badaa mid aabihii noqday cawliyahana marka dadka idinka maqan waa wasiirada ballanqaadka ila qaada inaan wasiirnimadooda ku celinayno jeebka Axmed ayna ku jirin jeebka cawliyahan ku jirto guud ahaanna dadka Soomaaliyeed ee isbedel doonka oo Ilaahay ka cabsado ninkii dhinto guri meesdo biyo matiida inuu baa ka soo haray aanu caawa maanta hadii la dilo geerideedu xalaal weeye 12 ilmood baan dhalay nolosha maxaan ku sifalay 45 sano waan jiray wara cabsanina cadaysta masayrkiina waxa aad wada leediin waxa xaq ku qaatana kula shaqeeyo waxa xaq darro ku qaatana ka diida maamulka waliba waxaan u sii raacinayaa dad guddi baan dhisnay haddaad samaysaan muxuu ahaayay baarlamaan baan samaynay haddaad madaxweyne ku dhawaaqdaan mid baan ku dhawaaqaynaa hadda maxaan kala qaadaynaa dadkuna way naga dhexayaan haddii la diido oy koox yar diido adduunka arkahaya beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka iyo inta samaha jecelbo waxaan u sheegaynaa isbedel doonka inayna dagaal wadin inayna dadka dilaynin habeenkii inayna dadka dilin inayna maalinkii jidka dadka ku xabadaynaynin inay aan mataqaanaa intii dharka loo soo bedela rag kaleeto aan mataqaanaa wax raftaan sameeyo la dhahaynin isbedel doonku waa nabadoon waxa nabadoonka la dhawaa isbedel doonka waa nabadoon waxaan diidanahay wixii xumaa ee na soo maray waxaan qaadanaynaa waxa sii socdo cid kasta oo diidan isbedelka diidan waxaan u sheegaynaa oo misid oo ku diraynaa waxa ay wadaan inaan kol la qaadanaynaa waday wax kasta dhacaan aniga oo hadalka badinayn waxaan leeyahay walaalahana isbedelka diidanow ninna nin caano oo liso dadku waa walaalo waa la isku wada tiirsan yahay ciidamada waa la wada leeyahay
dalkana waa la wada leeyahay sharcigana waa la wada samaystay hadday qolo gooni ay iska qaadato oo ay dhahdo annagaa leh ma shaqaynayso aniga wiilkaygaa ku jiro kaan adeerka u ahaa baa ku jiro kaan wada dhalanay baa ku jiro annagoo wada dhalanay ninkii rabaa arse keligii inuu qaato waad riyootay in adeero hurdada ka toos kan labaad waxaan leenahay annaga haddaan nahay isbedel doonka qabiil ma nihin soomaali baan nahay isbedel doon baan nahay berrina waa kan asaga ku bedelo berrina waa la bedeli saa dambana waa la bedeli aniga waxaa weeye anaa qabsaday ee waan idin haystaa ee waan idin yeedhini ma yeelayno adduunkana laguma maqal mana jirto marka ninka intaa ku hundisoonhayo waxaad u soo noqotaa miiska nabadda ku soo noqo walaalnimada u soo noqo in wax la wada leeyahay xasuuso dalkii in la wada leeyahay xasuuso inay wiilasha la wada dhalay xasuuso hubka aad adiga hadda hayso inuu magaca uu ku yimid la wada leeyahay xasuuso jidkii la soo maray raggii dhex daadsanaa xasuuso kuwa maalinka aad garanayso meesha wada daadsanaayo waxay ahaayeen xasuuso kuwa magaaladan adiga kuu dhiibay xasuuso intaa haddaad xasuusan weydo tiritaankaaga ma xasuusanayn 4 sano yuu lahaa qofkii hadda xigay madaxweynaha hadda jiray 4 sano lahaa sharci bay ahayd waqtigan markii la gaaro in uu badda soo dhigo la tartamo sharci buu sidaas ugu yimid oo sharci buu ku yahay isbedel doonku wuxuu kale oo isbedel doonku uu baahida keentay ay tahay waad ogtihiin Jubbaland 8 sano waad ogtihiin 20 kilomitir dhul aan dhannayn bay fadhidaa 15 degmo yay ka kooban tahay Jubbaland 15 degmay ka kooban tahay degmadan Kismaayo iyo degmadaas la yiraahdo Afmadow yaa laga hayaa dalkii intaas laga hayaa ayaguna aan isku gudbin baa laga hayaa haddii mar ay saas tahay oo 15 degmo laba kaliya laga hayo waxa isbedel khasab buu ku iman hayaa in isbedel waxaan ku sheegayaa toddoba degmo cadow gacantii bay ku jirtaa xoreyn bay u baahan tahay 6 degmana waxa weeye siyaasad xumay ku maqan tahay oo lama shaqayso maamul waa la kasban waayay ma garanaysaa intaa waa imisa 7 degmo maqan iyo 6 siyaasad xumo ku maqan oo la kasban waayay oo gadaa la kasban waayay kolkii la isku daro iyo labadaas aan joogno oo aan isku gudbin baahidaasaa keentay in isbedel la doono oo dad halkaa ka dhaqaajiyo horay u dhaqaajiya in la helo baahidaasaa keentay sharcigaana wuu keenay isbedelkaas sidaasuu ku yimid haddii la diido isbedelka sharciga ku yimid haddii la diido in odayaal dhaqameedka xalaasha ah in ay dadka hagaan oo xulaan haddii la diido muxuu ahaa dadka rabitaankooda shacabka haddii la diido oo qof in la soo xulo oo 3 lagu khasbo annaguna waan diidnay waxaa leexsan ee aan waan diidnay mana yeeli doono laba kala xoog badnaa dadku way naga dhaxeeyaa dalkuna way naga dhaxeeyaa waxaan leeyahay soo reebta nimankiinan uu kursigu u sii muuqday halacsan hayow waxaan u baahannahay Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo hal nafar beeshiba laga soo dooranhayo oo beeshiba hal nafar ay keenayso waxaan filahayaa ugaaska cawriya dhaqanka cawriyahan waa asaga dhaqan kale oo maanta cawriyahan uu leeyahay oo maxaan ku dhahdaa dhulkan jooga ama gada ha noqoto ama waasow ha noqoto meel walba oo cawriyahan uu jooga waxaan malay nin reer waas qorana markuu soo istaago asagaa loo istaagi jiray waxaan u malaynayaa cawriyahanow meesha la yidhaahdo bay 3 ugaas baa jirto cawriyahan 3daa ugaas markay imaadaan waxay daba fadhiistaan inuu waas qorana boqortooyada reer waas qorana
waxaan filahayaa waa inaad og tihiin boqornimadii cawliyahan in la baabi'iyo oo sandanadii soo jireenkeeda intaa jirtay in la baabi'iyo oo ay la dagaalamahayaan nimanka siyaasiyiinta ee maamula Jubbaland waxaan u malayn haddii boqorkiina lala dagaalamay idinkana noloshiina inaan la ogolayn cid noloshiina diidanna inaad maxaan ku dhadaa indhaha ka dhowrataan oo daba fadhidaan oo idinkeenaan maalin walba ayna dhahaan uga asweeyo aad ka daba fadhiisato arrintaa baandil bay nagu tahay waxaan ku dulqaadan karrana ma aha waxaan aqbali karrana ma aha dadka sidiisaba jiritaanka dhaqanka lagalama dagaalamo jiritaanka dhaqanka annagii ayay la dagaalamahayaan nimanka maamulka waa dad jiritaanka cawliyahan baabiin oo jiritaanka Soomaali weyn baabiinhaya mar haddii Soomaalida dhaqanka lagala diriro waxaan u malayn ninka la yiraahdo siyaasiga wuu yimaadaa haddana wuu tagaa laakiin dhaqanku ma tago mana nabaad guuro wuu taagan yahay cid walba oo imaata wuu la jiraa waxay aniga ila tahay Jubbaland waxay u baahan tahay isbedel waxa weeye Jubbaland way istaagtay way israacaysaa waa bil furso ninkii isku daya inuu Jubbaland maanta fadqalaleeyana waxa weeye dacar khadhaadh buu ka banaya waxaan leeyahay walaalaha sida qalaad wax u wada aan jecelahay anigu aanan nacbayn inay soo hagaagaan oo Jubbaland midnimadeeda saan u jecelahay noola jecelaadaan oo waxa ay guntiga gashadeen ay miiska soo saaraan oo beesha caalamka ay u dhigan nuglaadaan oo madaxda Soomaaliyeed federaalka ay u dhigan nuglaadaan oo annaga oo odayaashoodii ay noo dhigan nuglaadaan hadday yeeli waayaan akhrlaan iyo adduunlaan baa u dambaysa inta waxaan u sheegayaa walaalahay oo dhinac isku qoqobayo oo meesha badda hadda isku ururiyay badda iyo baridaaba ka fiican waxaan leeyahay badda ka soo baxa barida u soo baxa isku mid baan nahay fadqalala ma rabno dagaal ma rabno dil ma rabno dadka la leeyahay sida khaladka loo leeyahay hal iska daayo waxaan leeyahay ummadda Soomaalida maanta la laayay ee xalay la laayay waxa weeye arrintaas waxaan leeyahay dadka sida yeelahayo waxa weeye arrintaas waxa weeye ka soo noqda annagu tuhum baan qabnaa shabaab ma aha waxa dadka leeyahay argada dadka hadda maanta xabadda tooska loola dhacayo waxa la dhacayo waa ciidamada amniga lagu tilmaamayo waxa la leeyahayna waa ciidamada amniga kamid ah arrinta ma aha marka arrin shabaab lagu tilmaami karo waa arrin aan ahayn askar murantay ma aha askar dhul isku haysata ma aha askar lacag ka dhaxaysa ma aha waa arrin maartay si siyaasiyan u dhacaysa way arrintaas waxa weeye dib ha looga joogsado dadka dhintay ee xalay dhintayna waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto dadkii dhalayna ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo iyo suldaankii toddobaadkii hore dhintay Allah u naxariisto ummadii uu ka tagayna ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo ilaahay badal khayr ha ka siiyo waxaan leeyahay anu hadalka maanta maana jeclayn waa xogaa waa ligu yar khasbayay soo ugaaskii baa jooga ilaahay samir iimaan ha ka siiyo dadka ugaaskii baa jooga maanta oo culays baa dhabarka iga saaran ugaas Maxamuud ugaas Qorone ugaas Yuusuf waxaan kaloo inta ka salaamayaa nabadoonnada cawliyahan nabadoonnadiisi way wada joogaan iyo ugaasyada kale ehelka oo kale oo ehelada aan nahay oo Soomaaliyeed ay ka soo qayb gashay shirka ka soo qayb gashay iyo inta kale ehelada ah ama mutacalimiinta ama gabdhaha sharafta leh ee reer Jubbaland especially cawliyahanka ah ayagana waan salaamayaa intaa kadib waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo waama adi Jubbaland laga soo bilaabo baardheere ilaa iyo meesha ajoon lagu keeno laba ugaas baa xukunto labada ugaas waa midkii gada ee ilaa dhinacaasi adbuucar wax kaga jira xukumaaya wayna ugaas Qorone ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas Qorone ugaas Yuusuf iyo 6 nabadoon oo la shaqeysa ayaa ka shaqeyn jirtay dhinaca soke ee waama xageed markii la yiraahdane ina ugaas Qorone iyo 6 nabadoon baa la shaqeynaysay ina cali sokor saldanada nimankaas iska lahaa 6 nabadoon baa ayaan la shaqeyn jiray 4 iyo 10 bay isku yihiin
weligood nimankaas wadanka xukumi jiray oo ayaga saldanada iska lahaayeen intii ay gacantooda ku jirtayna laba ruuxna isma hirtin jirin laba ruuxna isma digaali jirin laba qabiilna isma digaalami jirin nabad baa lagu wada noolaa ehel baa la waalis jeclaa maamulkan Axmed Madoobe markuu imaaday nabadoono cusub oo artificial aan loo keenay oo bacrimisaan loo keenay waxaan idin sheegayaa hadda meesha cidda fadhida oo gooshan iskala waa cawliyahan lixii nabadoon ee cawliyahan way fadhiyaan waaskii cawliyahan boqorka wuu fadhiyaa kuwa Axmed Madoobe uu keensaday meeshane waa kuwa bacrimis oo meelaha uga soo aruursaday nama maalan isbedel doonkan kuma jiraan ugaasna ma aha nabadoonana ma aha ilaahay waxaan ka baryahayaa dowladda xasanaad badan iyo khayr badan baad carabkiina iyo indhihiina ku kasbateen in ajir iyo xasanaad ba ilaahay idinka siiyo intaa kadib waxaa la yidhi waalay wada jir bay wax ku leedahay waxaa weeye Soomaali ninkii diida intee u socdaa Soomaali diid waa ehlu naar wey Soomaali diid meel uu joogaba ama bari ha jiro ama waqooyi ha jiro ama koonfur ha jiro Soomaali diid waa ehlu naar maxaa yeelay Soomaali waa laangaab wey Soomaali 9 milyan iyo 10 milyan baa Soomaaliya lagu sheegaa Soomaali ummad laandheer ah ma aha 100 milyan ma aha waa 9 milyan 10 milyan inahaas ay u dhaxaysaa intaasaa dibindaabiye iyo dhibaatiyo dhamaasho lagu hayaa oo waagi ilaahay kor ka keenaba 100 baa sii dhimanaysa wixii iyaga ahaa haddaan saaka qoys u celinno qoyskuna magacyuu la baxayaa isna waa islaynhayaa waxaa fiican kolka sida ilaahay sheegay wa'tisimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu in xariga ilaahina la qabsado aanan la kala tagin oo Soomaalinimada la ayido haddiinan Soomaaliyay inan midoobin la xal baad noqonaysaan siyaasi iimaan ma leh siyaasi waa nin waalan nin iimaan leh ma aha qaraska tuur weeye ninka siyaasi la yiraahdo qabiil inuusan macno lahayn baan idiin sheegayaa wiil caydiid ka raganimo badan Soomaaliya kama dhalan yaa dilay caydiid hawiye ma dilin abgaal ma dilin murasado ma dilin sacad baa dilay muxuu ahaa caydiid ninka la yiraahdo sacad baa dilay bal qabiil baan idinka warramahayaa Cabdirashiid Cali Sharmaake yaa dilay ogaadeen ma dilin hawiye ma dilin mareexaan ma dilin kii dad u xigay baa dilay war nin walbow sabab horta aan walaalka ahayn malihid kullu nabiyun lahu fir'aun baa leeyahay nabi ma jiro ilaa hadduu jiro lahu fir'aun kuwa sida xun wax u daydayahayaad arkaysaan faraaciintii bay nasli ku leeyihiin ilaahay shartooda naga najeeyo shartooda Allah naga najeeyo waxaa weeye wax midnimo iyo khalaaf la'aan lagu waayayna تفرارق iyo kala tag lagu heli mahayo inta waa tii daneed ee guud ee Soomaaliyeed hadii aan ka baxo midda hadda saaka Jubbaland taala war Jubbaland Soomaali waa u wada dhimatay Soomaali waa u wada dhimatay niman wiilkiisa saaka ku maqnayn ma jiro Soomaali waa u wada dhimatay waxa saaka Jubbaland loo yirina waxa weeye waa community mid ah oo walaal ah oo wax isku darsaday way waa federal way community baana gobollaannu kala degnaa degmooyin baan kala degnaa wax baan isku darsanay war hadee wixii aan isku darsanay ma cid gaar abaalaho sheegan karta ma cid gaar abaa sheegan karta cid gaar ma sheegan karto ninka saaka Jubbaland anay igu kooban tahay lahow waad khaldan tahay abtirna dad ana u xiga Ahmed Maxamed Islaan ugaaskiisi baana dadna ana u xigo saaka hadii la isku abtirsado baahalo baahtanadaan wadana haddaanan aniga gardaradiisa qabanin cid qabanaysa ma jirto Ahmedow
axmedow dhudhubo oodan iyo dhiraad jabaaxaysaa meel cidlo abaad gudaysaa mas-uuliyad iyo madaxweyne waxaad ku noqon kartaa reer jubbaland oo ku doorta oo raalli ka ah baad ku noqon kartaa awood saaka ummadda nin ku qabsan karaayo ma jiro ina adeerow dadka tafaraaruqa iyo kala qaybinta ka daa oo dadka Soomaaliyeed adoo wiilkooda oo u soo halgamay dhax fadhiiso ilma adeerayaalow idoorta dheh waxaan inta ahayn waxaan khasaare ahayn oo kala kulmaysaa ma jiro fi dunya wal aakhirah aakhirana xisaab baa ku sugaysa adduunna xisaab baa ku sugayso dadkan dad xabad lagu layn kara ma ah bal intay tiro leeyihiin fiiri dad xabad lamaysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Jubbaland argagixisada laga daayo dowlad tuska laga daayo dadka hantida lagu dowlad tusahay ayaga iska leh waa dhaqaalahoodii waa canshuurtoodii waa dakadoodii dadka dowlad tuska laga daayo waxa weeye miskax ka maqnaan walaalka bay ku jirtaa baa la yiri hawada yaysan walaalow foorkaa kuwa saaka munkarka iyo macaasida ehelka kuwa ana meel ku geyn mahayaan waa ku dhumin hayaan waxaan leenahay Allah idin soo hanuuniyo idan man nacbin wiilashayadii baa tihiin dadkiina irjac ila al-asal dadkiina dib ugu noqda ilaahina u noqdo ilaahi ka yaaba ilaahi baan ku dhaartay waxaan ilaahay idin qorin inaynan leefaynin oo inaan dhadhaminayn baa ilaahay goob ma dhadhaminaysa waxa weeye waxaan leeyahay hadalkayga waan soo gaabin hayaa Soomaali hamidowdo arrimaha doorashada ee la leeyahay saddex keena horaan nooga hadal anigu hadda dadkan meesha lagu aruuriyay ka hadli mahay dadka meesha lagu aruuriyay Axmed ku aruursaday waa ka beelihii ay ka dhasheen cid ay meesha geysteenna ma jirto boqorka ama nabadoonkuna beeshiisa dooratay Axmed Madoobe ma doorto beelahooda dib ha ugu soo noqdaan oo maskabka beeshoodu kaga jiraay maskab ha u doontaan Axmed Madoobe maskab ma bixiyo waxa weeye saddexda la leeyahay saaka hal la keeno dadku waxaa la yiri xar dhalatay waa ugu xun ayadana indhaha faraha iskama geliso war anigu waxaan ogolahay inaan ninku keeno oo ninka kasbato ninkuna uu noqdo mid ummadiisu dooratay oo ummadii u shaqeeya haddaad saddex keen tiraahdo soo adigu inaad midkaad rabto kala baxda ma maxay aniga ii haraya wiilkaas miyuu shaqeynaya wiilka yaa doortay maadaa doortay mise annagaa dooranay kow hadda maanta cawliyahan 6 xubnood buu siduu nabadoon siyaax u sheegay 6 xubnood buu cawliyahan lahaa mid waaba maqnayd oo hadda taladeedaaban haynay Axmedow adaa shalay lagu dhibaadiyay dadkii lahaana waa u baahan yihiin in shalay dadkii kugu dhibaadiyay aad dib ugu soo celiso oo aljazaa'u al-ihsaan ila al-ihsaan baa la yiri ihsaankooda aad ogaato aday dan ku tahay haddaad si abaalaawo tahay oo waxa gacantaada gaaraba aad la tagayso bari bayba taaganta hadii ilaahay umul baa qaaday umul muxuu yiri aqlisan muxuu yiri baa la yiri waxaan ka tacsiinayaa oo dhammaan anoo ku hadlaya afka ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland ku nool waxaan ka tacsiinayaa geeridii ku timid muxuu ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir muxuu ahaa injineer Yariisow iyo gudoomiyaashii kale ee xaafadaha muxuu ahaa gobolka Banaadir iyo muxuu ahaa in alla intii ilaahay muxuu ahaa gacantooda nimanka ku sababay iyo Suldaan Dhurre
oo gobolkan Kismaayo ku dhintay intaba tacsiya kii u dambeeyay xalay dhintay intaba tacsiya ilaahay dartii abaan u diraynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa intii ay ka dhinteen samari iimaan ilaahay ka siiyo iyo dhammaan Soomaali weyn ba hadii ilaahay Soomaali waa isku ool waanu isku tacsiyeynaa waanu isku ooyeynaa farkaliya nahay ummadda reer Jubbaland waa Soomaaliya Soomaali ninkii diidana raaci mayso ma raacayso ummadda Jubbaland ninkii Soomaaliya diiday